السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada koorskan farsamada baabuurta. waxaan ku guda jirnay cutubkeennii afraad. waxaan bilaabanaa casharkiisa afraad. waxaan uga hadli doonaa kala duwanaanshaha labada kaambiyaha la maamulo iyo kaambiyaha aan la maamulin, ama automatic transmission ama manual transmission. iyo sidoo kale steeringka asagana wax yar ka taaban doonaa. waxaan soo jeedinayaa casharkan anigoo ah Maxamed Harsi Faarax. wixii jawaab celin waxaan ugu soo celin kartaan Soomaaliis ciwaanka shaashadayna ka muuqda. koorskan waxaa kala socoteen mareegtada Somalism Online Academy. waxay ku kala duwan yihiin labada sanduuq. sanduuqa geerka la maamulo waxa uu leeyahay kiliish, laakiin sanduuqa geerka aan la maamulin ma lahan kiliish. kiliishka shaqadiisa waa garanayna inuu motorka kaambiyaha kala jaro. sanduuqa geerka aan la maamulin ma lahan geer bedel, oo geerka yani lama bedeli karo, gacanta laguma bedeli karo, asagaasi automatic ama maskaxiyan isku bedelaya. taas oo keenaysa awood gudbintiisu in ay ku gudubto si iskeed ah oo aan la maamulayn, halka sanduuqa geerka la maamulo uu leeyahay geer bedel, taasoo laga xukumo socodka gaariga. labada sanduuq waxay qabtaan shaqo isku mid ah, shaqay qabtaan oo shaqadaas oo ah inay gudbiyaan socodka matoorku dhaliyay, mana ahan kuwa gabi ahaantood kala duwan. yani gabi ahaantood ma kala duwana, meelo iska shabahan badan, laakiin qaabka uu u shaqeeyo sanduuqa geerka aan la maamulin ayaa qaab cajiib ah. yani sanduuqa geerka aan la maamulin asaga xawaarihiisa, geerarkiisa asaga maamulane, asaga siyaadsane. marka sanduuqa geerka aan la maamulin wuxuu shaqeeyaa yani cajiib ah, qaab cajiib u shaqeeya oo ka duwan sanduuqa geerka la maamulo. haddaan inta uga soo gudubno sanduuqa geerka, aan usoo galno steeringku gebi ahaantiisa horta waa wax u leexleexiyaa lugaha hore ee baabuurka, asaga oo darawalka u ogolaanaya hadba halka uu rabo. darawalka hadba halka uu rabo asagoo u leexinaya taayirada hore ayuu steeringku wareejiyaa labada taayir oo hore. steeringku waxa uu ka kooban yahay giraan oo tan ah, sabarad oo tan ah, xiriiriye oo kan ah, khasnad xaggana la dhahaa meeshan ay ku jiraan, oo maxaa la oran jiray u kala gudbinaysa labada taayir. iyo gacmo waa kuwan soo celcelinaya, taayirkan gacanta soo celinaysa iyo taayirka kale gacanta soo celinaysa. intaas steeringku ka kooban yahay. steerimo waxaa jira horumarsan oo xaggan uu ka saaran yahay bahal hydraulic la dhaho, caawinaya leexinta ka caawinaya. haddaba haddaan soo qaadano steering yaro fudud, saan buu u shaqeynaya. habda mid buu soo celcelinaya, taayirkan dhankan u soo celinaya, kan dhanka kale u sii riixaya. ugu dambeyn kaambiyaashu waxay u taagan yihiin gudbinta awoodda matoorka. markasta yani waxa u shaqeynayaan ama ka shaqeynayaan kaambiyaashu ama gearboxyadu, sanduuqda geerku waa inay gudbiyaan awoodda matoorka soo saara. kaambiyaashu waa laba nooc, mid la maamulo iyo mid iskiis isku maamulo oo maskax ku shaqeeya. yani qaab computer ah buu u shaqeeyaa oo isaga iskiis isku maamulaya automatic ah. kaambiyaashu waa meesha xukunta socod gudbinta baabuurka, hadba siisa inta aad la rabto. yani kaambiyuhu hadda socodka gaariga wuxuu siinayaa habda intii aad adigu u ogolaato. haddaad rabtid inaad ku socotid xawaaro yara, haddaad rabtid inaad xawaaro badan ku socotid, asaga laga maamulaya. steeringku waa meesha leexleexisa gaariga kuna hagta hadba meesha la rabo. steeringku asagana shaqadiisu waa shaqo iska dhib yar, iska fudud, waana wada fahmaysaa insha allah. dhammaad casharkeena maanta intaas ku egyahay. insha allah waxaan balana casharkan iyo casharka. aad baa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.